abwaan xasan jacayl oo kamid ah suxufiyiinta Soomaaliyeed isla markaana in dhawaanba ku xanuunsanaya magaalada Nairobi caasimada dalkani Kenya ayaa maanta waxaa laga soo saaray isbitaalka Copten Hospital ee magaalada Nairobi xilli koomo uu ku jiray muddo 2 bilood ah. abwaanka oo xanuunka isbitaalka uu u galay sababay cudurka macaanka loo yaqaan ayaa waxaa intii uu ku jiray isbitaalka gacanta ku hayay isla markaana fangareynaya dhaqaalaha ku baxaya hay'adaha kale RSF oo ah wariyaasha aan xuduud lahayn, Rory Breakfast, CBJ iyo hay'adda Doha Center kuwaas oo dhammaanba u ololeeya xuquuqda suxufiyiinta caalamka iyadoo si gaar ah xalkiisu uu warqabay suxufiga Maxamed Gaarane Aadan oo isagu ugu wakiil ahaa dhammaan hay'adihii gacanta ku hayay. abwaanka ahna wariye xasan jacayl ayaa ka warbixiyay xalkiisa caafimaad isagoona iminka uu u baahan yahay in laga bedelo mid kamid ah kiliyihiisa isla markaana loo baahan yahay in la sifeeyo sitimaan walba taas oo markiiba ku kacaysa lacag gaaraysa $200 Mareykanka ah isla markaana waxa sidoo kale uu u baahan yahay caafimaad dalka dibadiisa ah. xaaladeyda caafimaad hadda waa fiican tahay, waa roon tahay. waxaan ilaahay ka baryaa inay si siyaado, waxaan ilaahay uga baryaa qol intii garab siiday in ilaahay garab siiyo. waa xasan maxamed maxamuud xasan jacayl loo yaqaano oo in muddo bukaan ahaa, runtii bukaanka hadda kuna sugan qol ka mid ah qolalka isbitaalka Coptic ee magaalada Nairobi. marka waxaan mahadcelin ballaaran u jeedinayaa intii igu daashay ee daba socotay ee igu dadaashay ee ugu horeeyo una dambeeyo Maxamed Gaarane Aadan. waa saaxiib aan la iloobi karin. isbitaalku waa isbitaal cajiib ah, runtii waa isbitaal aanan arag isagoo kale sida lagu adeegayo iyo sida lagu dadaalayo iyo sida lagu daacad yahay aanan arag waa weli. dhanka kale waxaa isna la hadlay telefishinka caalamiga ee Hon Cable TV oo muddadii uu xanuunsanayay wariye xasan jacayl xaalkiisa caafimaad ka warqabay Maxamed Gaarane Aadan oo ku wareejiyay abwaanka lacag dhan 57,000 oo shilinka Kenya money ah isla markaana u dhiganta $695 Mareykanka ah. walaalaha Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa in aysan dadaalkooda aysan yaraysanin maadaama aad arkaysaan walaalayaal in dad media aan wadaagno oo caalami ah ay xasan u soo gurmadeen. maxaa idin diiday adinkoo media Soomaalida ah, adinkoo ummadda Soomaaliyeed ah, adinkoo madaxda Soomaaliyeed ah, adinkoo muwaadiniinta Soomaaliyeed ah in xasan u soo gurmataan oo runtii aan ku tilmaami karo wariye qaran, abwaan qaran. marka aad u mahadsantihiin. waxaan jeclaan lahaa in aan halkan aan ku wareejiyo xasan lacagtii ugu dambeysay oo ay soo gaarsiisay hay'adda wariyaasha aan xuduud lahayn ee RSF-ta. lacagtaas sida tirada halkan ka muuqata waa 57,163.67 shilin oo lacagta Kenya ah oo wadanka Kenya ah harin. lacagta isbitaalka laga bixiyayna waxay dhan tahay amaba ay gaaraysaa 250,000 oo lacagta shilinka Kenya ah. gaaranayo ahay kaaso waxaan hortaan aan u mahadceliyo TV-ga Hon Cable. abwaan xasan maxamed maxamuud xasan jacayl isla markaana ah suxufi qaran oo dhibaatadan ay haleeshay isla markaana ay sababtay macaan uu qaba dartiis muddo 20 sano ka hor ayaa waxaa sababtay in looga jaro lugtiisa midig isla markaana waxaa iminka caafimaadkiisa uu ka soo reynayaa sida horyadoona inta badan suxufiyiinta ku dhaqan magaalada Nairobi caasimada dalkani Kenya ay dadaal fara badan u galeen qaabkii uu caafimaadi lahaa. Cabdirasaaq Miro Dhoore, Hon Cable TV, Nairobi.